horta sharaf bay noo tahay maanta haddii aan nahay golaha amniga Afrika inaan socod ku nimaadno Muqdisho iyo Soomaaliyaba in sharaftaas ilaahay wixii ka sokeeya waxaa le ra'iisul wasaaraha maanta xagga nagu qaabilay in oo golaha amnigu si wanaagsan ay u wada hadleen oo ra'iisul wasaaruhu u bandhigay in dalka in dawladda federaalka ee Soomaaliya meesha ay ku wado siyaasadeedu sida ay u taalo tu nabadeed iyo tu dhaqaalaba markay tahay in markaasi in xubnaha ka midka in golaha amniga Afrika iyo ra'iisul wasaaraha iyo waftigiisu si ballaaran oo runtii ay ku jirto kal jacayl iyo walaaltinimo ayaa la isku wareystay ra'iisul wasaaruhu in su'aalihi ay weydiiyeen waxa kamid aha nabaddu Soomaaliya in xaggan ay maanta socoto golaha amnigu cadeeyay inay in Soomaaliya ay dariiq dheer ay soo martay maanta ay ka soo baxaysa dhibaatadii badideeda in horumarna inay gaadho la doonayo leeyno horumar iyo dhaqaale way wala socdaan iyo nabadi way wala socotaa intuba markaasi in golaha amniga Afrika sida runtii mabsuud buu ahaa in su'aalaha badan uu weydiiyay ra'iisul wasaaraha iyo jawaabta uu siiyay meesha ay Soomaaliya ay ku socoto markaasi haddii anagu aan nahay golaha amniga anaguna si gaar ah aanu ahay safiirkii Djibouti hogaaminayay bishan saadugtiin Djibouti baa madaxa haysa in golaha amniga Afrika sharaf gaarna way noo tahay anagu reer Djibouti waxaa yeelay nin dalkiisii joogaan aanu ahay in raggan walaalahayna maanta mabsuud baynu dhowgay ku arkeen Soomaaliya waji kale iyo ka arki jireen waxay ka maqli jireen wax kale in ay wali arag laakiin maanta markay arkeen Muqdisho say tahay horumarka dalka ka socda wax badan oo wanaagsan socodkaana wuxuu ahaa socod wanaagsan oo muhiim ah oo in la yimaado la arkaa iyo sidii dawladda wax loola qaban lahaa in Britoli iyo waqtiyada soo socda markaasi hambaliyaan leenahay anoo haddana xukuumadda dalka ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo shacabka Soomaalida ma hadna qodiray sidaad la socotaanba waxaa maanta booqasho ku yimid magaalada golaha nabadda iyo security-ga African Union ururka Africa golahana markay halkan ku yimaadeen ka kooban 15 safiir oo booqasho ku yimid rasmi ah waddanka waxay rabeen inay u kurgalaan xaaladda waddanka ka taagan horumarka waddanka laga gaaray nabadgelyada waddanka heerka marayso iyo ciidamada Amazon halkan jooga halka ay joogaan sidaas darteed markaan soo dhaweynay golaha maanta waxay shir la yeesheen hogaaminayo ra'iisul wasaaraha waddanka Mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarahana wuxuu uga warramay iyo wasiiradii joogay taliyaasha ciidamada wuxuu uga warramay xaaladda waddanka heerku yahay horumarka dhaqaalaha horumarka siyaasadda horumarka nabadgelyada iyo waddanka xaaladdiisa guud ahaan siday tahay mustaqbalka Soomaaliya ay tiigsanayso waxa ay Soomaaliya dadka ka aaminsan yihiin iyo Soomaaliya sida la rabo in loo arko ra'iisul wasaaraha wuxuu ku nuuxnuuxsaday warbixintiisa dheereyd markuu la hadlay golaha in dadka ay Soomaaliya la rabo in loo muujiyo ma aha sidii ahaan jirtay laakiin sida aan rabno Soomaaliya mustaqbalka inay u muuqato iyo tiirarka ay hiigsanayso Soomaaliya wuxuu warbixinteeda ka bixiyay ra'iisul wasaaraha afarta tubood oo hadda dawladdan ay hirgelinayso nabad iyo nolol tubta dhaqaalaha tubta siyaasadda loo dhan yahay tubta arrimaha bulshada iyo tubta cadaaladda iyo nabadgelyada wuxuuna uga warbixiyey in horukaca waddanka oo dhan ay iyo shaqada wasaarad walba iyo hay-ad walba waddanka ka tirsan ay ku soo dhacayso tubahaas loo jeexay la rabo in waddanka 2020 doorashooyinka ay ka dhacaan in waddanka la rabo inuu nabad ku soo dabaalo in horumarka ka socda geeska Afrika iyo nabadgelyada ka coratay cusub iyo dabeesha cusub oo nabadgelyada iyo waddanka meesha uu ku yaalo istaraatiijiga sidii looga faa'iideysan lahaa wuxuu kaloo u sharxay ra'iisul wasaaraha guddiga ama golaha nabadgelyada iyo security-ga wuxuu u sharxay in ay Soomaaliya u baahan tahay in la maalgeliyo in la abuuro shaqooyin in dhalinyarada Soomaaliyeed uu yahay mustaqbalka waddankan sidaas darteedna ay Soomaaliya tahay door weyn ay ka qaadan karto sidii uga faa'iideysan lahayd horumarka cusub ee geeska Afrika iyo nabadgelyada cusub dadka qaar ayaa weydiiyey safiirada qaar su'aalo weydiiyeen safiiradana si fiican uga jawaabay su'aasha ugu badan ay weydiiyeen waxay ahayd Soomaaliya inay diyaar u tahay
marka ay ciidamada midooda Afrika ee halkan jooga nabad ilaaliya la dhimo ama waddankaba ay ka baxaan. Ra'iisul wasaarahana wuxuu si toos ugu sheegay in ay Soomaaliya ku socoto jidkii saxda ahaa, la diyaarinayo ciidamada, la tababarayo ciidamada, kala wareegayna nabadda iyo mustaqbalka ee Soomaaliya higsanayso.